السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warka hore war soo dhawaada wax fiican oo maanta cunugaaga miisaankiisa aad kuugu siyaadinayo haddii uu yahay caatan naf ah ayaan ku hayaa. soo dhawo marka ugu horeyntii ku soo dhawo channelkan. markasta waxaan soo geliyaa cuntooyinka caruurta iyo cabitaanaadkooda dhammaan waxyaabaha ka qayb qaadan karo ubadkaaga inay si qurux badan u koraan. subscribe saaro oo saaxiib la noqo channelkan si wax badan aad xog ogaal badan uga aruursatid insha Allah. meeshan waxaa u baahan tahay ilaa 4 shay ayaad u baahan tahay. marka hore waxaad u baahan tahay waa yogurt, waxaa u baahan tahay sisin, waxaa u baahan tahay tufaax aad soo shiiday ama haddii kale aad soo hooshay. waxaad kaloo u baahan tahay boorash ayaa u baahan tahay. marka si wax badan aad u ogaatid intaan horta meel ku qoro insha Allah. maalin walba gabaray cunugaaga ma rabtaa inuu kor haadhe maalin kasto casriya ahaan u sii. waxaad ku arki doontaa 5 maalmood gudihiisa cunugaaga in wax badan jirkiisa uu iska bedelay. ma fahamtay? waa haddii aad tahay hooyo ay ka go-an tahay ubadkeeda si qurux badan inuu u koro, runna ay kaa tahay in cunugaaga uu yahay mid miisaankiisa aad u liito. isku day in aad muuqaalkan dhamaysatid kadibna aad ogaateed waxyaabaha ay yihiin iyo sida lisugu daraayo. intaas ayaa isku soo darsanayda. kuwa hore yoogada ayaa ku shubanay 2 qaado, kabacdi waxaa ku darsanayda tufaax aad soo hooshay, geedka yaroo lagu hoolo tufaaxa ku hoolo. waxaa kaloo ku darsanaysa sisin shiidan, waxaa kaloo ku darsanayda boorash. intaas ayaa si fiican isku dhexgelinay. kadib waxaad sameynay blenderka ayaad la aadaydaa, kabacdina waad isku shiidaysaa, kadibna casri ahaan ayaad u siinay. mida kale haddaad rabin, gabdho badan waxaa arkaya dhahayo abaay boorashka sidiisa ma lagu sii karaa ilmaha? waa lagu sii karaa, weliba fitamiinaadka ugu fiican ayaa ku jiro oo dabka fitamiinaadka ayuu ka dilaabo qaarkood. marka la kariyo waxaad arkay wax badan oo fitamiinaadkiisa ah in ay lumeen. marka taasaysa u dhicin, isku day adiga in aad ogaatid waxyaabaha markasto ku saacidayo ilmahaagan miisaanka fiican siinayo in aad ku dadaashid. intaas ayaa isku darsanaya. boorashka daarifta soo karsanaya, daariftina sidiisa ayaad ugu sameynaydaa. kabacdi waxaad sameynaya intaan ayaa isku darsanay. waxaa sameynaydaa weel yar oo gooni oo ah ugu shubo, qaado afka u gelgeli. cunugaas uu noqdo commentiga igu soo qor markii 5 maalmood ay ku dhamaato. ma fahamtay? caanihiisa ka daba siinay kaala arag waxba lagama qaban karo, ka sheekeena malaha. in badan oo ilmaha miisaan xumada heeso, ilmaha miisaan la-aanta ibirka la ah, ilmaha daciifka ah, ilmaha nafaqa la-aanta leh. gabdho badan waxaa arkaya ilmo aad yacni nafaqa la-aan ah haysto oo markasta dhaho shukulaatada ama malmalaadada waxaa siinaa MCH-yada laga qeybiyo. waxaasoo dhan uu kaa saacidayaa. hadday kaa go-an tahay adi dhexda inaad u xiratid cunugaaga, wax badan ayaad ku arki doontaa videogan oo aad kuu cajabiyo misna ilmahaaga wax badan u taro. intan u daa-in wax kale aad u baahantaha malaha oo sharoobo walaa malmalaado walaa kiimika kale. videogan ama cashirkan ayaa kaa kaafi yeelayo insha Allah in cunugaaga miisaankiisa uu si degdeg ah kusoo laabto adigoon cid bini aadana bariin aan Allah ka ahayn. channelkana in badan aad wax badan ka faa'iiday insha Allah. waxaan rajeynayaa gabdho in videoyada aan soo gudbiyo wax badan aad ka faa'iideen, bisana gurihiina iyo caruurtiina naftiina intaba aad uga faa'iideysateen. waan niiga mahad celinayaa wallaahi qaabka quruxda badan oo markasto aad ii dhiirigelisaan, aad igu soo duceydaan. si wanaagsan ayaad sameydaan had iyo jeer. laana bulshada markasto kugu xiran waa in ay kaa arkaan wixii wanaagsan aad u soo gudbinaysay in ay ayagana ku faa'iidi karaan. meeshan aan waxaa mar walbo yacni waxaan igu soo geliyaa in ay ka faa'iideystaan hooyooyinka markasto ilmaha heesto ay ka dhigtaan meel ay ku tashan karaan mustaqbal ahaan oo wax badan oo ka saacida caruurta ay ka heli karaan. run ahaantii channel cunto karin caruur ah oo yacni cuntooyinka caruurta lagu soo bandhigo aad buu u yaryahay hadduu jiro. waxaan rajeynayaa marka
in kan uu noqdo mid aad uga faa'iidid, mid aad kuu saacido, leanna ilmaha waa laga mashquulay. Soomaali ka ahaan lama saaro xooga caruurta cuntadooda. Waa laga yaabaa caano iyo waxyaabahaas in loo raadiyo, laakiin cuntada ilmaha waa muhiim jiddan in hooyo kasta ay ogaataa cuntada caruurteeda ay ku dareemi karaan waxyaabo faa'iido leh inay ka heleen ama farxad ay ku dareemi karaan. leanna ilmaha markii la siiyo cunto caafimaad leh farxad bay dareemaan, mustaqbalkooda isbedelo, noloshooda dhanaa qurux badnaato, timaha u baxo, maqaarkooda ifo, jidhka gudihiisa nadiif noqdo, indhaha aragooda xoog noqdo, maskaxda isfurfurto, wadnaha si wacan u shaqeeya, caloosha way socotaa, waliba si dabiici ah u socotaa. marka waxyaabahaas oo dhan waxa ka saacidi karo waa in halkan aad ku xirnaatid, waxyaabaha aan soo gudbiyana aad ka faa'iidaysatid, aad tijaabisid, waliba si niyad ah intii maalmood oo lagu qabtana natiijada aad ku keentid. war gabdho intaan aan kusoo ekeenayaa muuqaalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.